sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah qof soo xidhay jaakada qaraxyada ayaa gabaldhici maanta isku miidaamiyay maqaayad ku taala afaafka hore ee xerada tababarada ciidanka xoogga Soomaaliya ee Jeneraal Dhigabadan Ekis Xera Nacnac. inta la xaqiijiyay 4 qof ayaa ku geeriyootay qaraxaasi sidoo kale ugu yaraan 10 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. dadkaas ayaana la sheegay inay isugu jiraan askar iyo shacab ku sugnaa maqaayada. afayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa qoraal uu ka soo saaray qaraxaasi waxa uu ku yiri abaaro 5 iyo 18 daqiiqo oo galabta ah qof naftii halige ah ayaa isku qarxiyay maqaayad u dhow xerada Jeneraal Dhigabadan Ekis Nacnac. khasaaraha ayaa noqday 14 qof oo dhaawac ayadoo ay dhaawacii u geeriyoodeen 4 qof. shakhsiga naftiisa haligay ayaa toos u beegsaday maqaayada ay ku shaahayeen dad ka mid ah bulshada deegaankaasi. kooxda al-shabaab ayaa durbadiiba sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi. warbaahinta taageerta kooxda ayaa warisay in al-shabaab ay sheegteen in qaraxaasi lagu dilay 20 askari oo ka tirsanaa ilaalada dugsiga tababarada ciidanka Soomaaliya ee Turkisom. qaayada uu galabta qaraxaasi ka dhacay oo ku taala ka soo horjeedka warshadii hore ee Nacnac haatana ah xero tababarka oo ciidanka xoogga markaasi uu leeyahay ayaa dhacda dhinaca koonfureed ee degmada Wadajir. 15 Juun ee sanadkii tagay ayuu sidaan oo kale qarax ismiidaamin ah uga dhacay maqaayadaasi. dhanka kale qarax gaari lagu dhajiyay ayaa mar kale caaw waxa uu ka dhacay isla degmada Wadajir gaar ahaan agagaarka halka loo yaqaano Xaaji Kaabow. gaariga lagu dhajiyay qaraxa waxa sidoo kale lahaa shirkad lagu magacaabo Caadil. mana jiraan wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay qaraxaasi markii laga reebo burbur xoog leh oo gaaray gaariga. sidaasi waxa warbaahinta u xaqiijiyay afayeenka booliiska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan. dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali ayaa maanta khadka telefoonka wada hadal kula yeeshay wasiirka arrimaha Afrika ee boqortooyada Ingiriiska VK Ford. labada wasiir ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga ku dhisan wax wada qaybsiga, ixtiraamka midnimada iyo madax banaanida qarannimo ee labada dawladood sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. sidoo kale waxay wada hadalkooda diiradda ku saareen kor u qaadida xiriirka laba geesoodka ah ee labada dawladood iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha, horumarinta iyo arrimaha gobolka Geeska Afrika. wasiir Cabdisaciid Muuse Cali ayaa dhankiisa uga mahad celiyay dawladda Ingiriiska taageerada ay u fidiso dawladda Soomaaliya. wada hadalkan degdeg ah ee Cabdisaciid iyo VK Ford ayaa yimid kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka UK ay mar kale bilaabeen olole ictiraaf loogu raadinayo maamulka Somaliland oo iyadu markaasi ku doodo in ay tahay dal madax bannaan. xukuumadda Britain ma aqoonsan doonto gooni isu taaga Somaliland mana jirto rabitaan ku aadan arrintaas sida ay marar badan sheegtay oo ay ugu dambeysay bishii November ee sanadkii 2021 oo ay VK Ford oo ah wasiirka UK u qaabilsan arrimaha Afrika ay cadeysay in UK ay Somaliland aqoonsan doonto oo kaliya marka ay go'aan noocaas wada gaaraan Soomaaliya iyo dalalka kale ee Afrikaanka ahi. maamulka Somaliland ayaa inta badan ku bixisa dhaqaale badan sidii ay uga mira dhalin lahayd qadiyada gooni isu taaga ah ay ku dhawaaqday 1991 inay Soomaaliya inteeda kale kaga go'day. hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa isku daygaasi weeqda ayadoo ay ugu dambayso tallaabada maanta ah ee UK u gaarsiiyeen ilaalinta midnimada iyo madax banaanida Soomaaliya.